halkani waa taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegnaa. jees yaalla waqooyiga Itoobiya ayaa sheegay inay 4 kala adhi waa toddobaade ay qarinayeen 2 askari oo falaagada gabraaratada iyo gaarayacuunta Tigray ay daba jabacsanayeen. waxay sheegeen in askartan uu dhiigu tiflaha oo ay ahaayeen dhaawac isla jeerkaasna ay ku qariyeen abjad iyo 2 caws oo daryaale ah dhexdooda. waxay sheegeen sidoo kalena in Ilaahay ka indhasaabay oo aanay arkin halkaana muddo lagu boogadhayay. intaa waxay ku dareen inay askartani ku jeeni qaarnayd dhowr qori oo ay cadowga ka furteen, kuwaasoo kala ahaa daba jaariye AK iyo dheeglaab ama dabalaab. meeshan 2 askari ee dhaawac ah lagu qariyay ayaa ku taala sida la sheegay qaydka dhuleed ee ay wadaagaan qoomiyadaha Amaarada iyo Tigray oo isku muqlaysan, kuwaasoo aan isbixinayn. warbaahinta dalka Itoobiya ayaa iyaduna raxan shubaysa in jeeskan askarta badbaadiyay ay yihiin halgamayaal qaran oo wax weyn dalka iyo ciidamada Itoobiyaba taray. deegaanka ayaa la sheegay in la dhaho Maydabri. iyaguna warar docogaysi ah waxay sheegayaan in xukuumadda Turkigu isku dayayso mar kale ilaa waa la yiraahdaa inay kala dhaxrodo dawladaha Suudaan iyo Itoobiya oo muddo isa suran. siday xariiqday mareegta wararka ee Suudaan lana dhaho AS ayaa sheegtay in hogaamiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi ninka la dhaho Cabdifataax al-Burhaan uu madaxa u ruuxay, sidoo kalena ogolaaday codsi uga yimi Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga oo daaranaa inuu dhexdhexaadiyo geedkana soo wada fadhiisiyo iyagoo galyigila dowladaha Khartoum iyo Addis Ababa. arrinka laga wada hadlayo ee Turkiguna fadhiga ka soo kiciyay ayaa lagu sheegay deegaanta beeraha ku wanaagsan ee Al-Fashqa oo ku taala gobolka Qadaarif, taasoo Suudaan xoog ku qabsatay maadaama ay sheegtay inay tahay yadeeda. wasiirka arrimaha dibadda Suudaan afada la dhaho Maryam Sadiq al-Mahdi ayaa bitisay in dowladda dadkeedu ay geedka soo fadhiisan doonto iyadoo ogol ah wada xaajoodka Turkigu isu qaynshaaray. Itoobiya iyo Suudaan ayaa la og yahay inay yihiin dowladoodu kala rogan tahay oo dhinaca isku haya, kuwaasoo muddaba deeradu dhexdooda ka hif leedahay maadaama ay isku hayaan jidhaanta winiiqa leh iyo kalshinta ay Itoobiya muddaba biyaha ku dharuuraysay oo ah biyo xidhaan, iyadoo marka taa laga yimaadana khilaafkooda uu cirka ku sii shareeray kadib markii Suudaan ay xoog ku qabsatay dhulbeereedka gobolka Qadaarif oo ay ku andacootay inay iyadu leedahay xayiigtiisa. ilaan waa tubatuku ilow xaalka Muqdisho waxaa ka dibinjaaqday khilaafka ka dhex jira Rooble iyo Farmaajo. dowlad la sheegay inaan Soomaaliya iyo iyada dameerahoodu xataa meel wada daaqin. dowladda Vietnam ayaa markii ugu horeysay ka hadashay khilaafka laxooska ah ee siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyadoo Itaal Baaska isla wax iskaga day. danjire xigeenka dalka Vietnam u gowdiida Jimciyadda Guud ee Qaramada Midoobay ninka magaca shaydaan leh ee la dhaho Ham Hai Ha ayaa sheegay in dowladdiisu ka xun tahay khilaafka ka soo kordhay Soomaaliya iyo muranka madhalayska ah ee meesha iyada ah ka taagan labada fiidcawl. wuxuu soo jeediyey inay wada hadal wax iskaga dayaan oo dhammaystaan xaaladooda, maadaama dalkaasi Soomaaliya markasta oo loo soo doorto madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ay ku dambeeyaan sidii 2 afo oo la wada qabo ama dangalooyin halkay noqon lahaayeen dan wadaago. iyaduna madal ku taala Beligubadle oo ah magaalo madaxda gobolka Hawd kuna taala qaydka u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya ayaa si rasmi ah waxaa xilkii loogu kala wareejiyay gudoonkii hore ee gobolkaasi Axmed Cigayare iyo gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi Axmed Maxamed Yaar. bogcadda xilka lagula kala wareegayay waxay ahayd madal la soo buuxiyay iyada oo la isaga kala yimi 4 beenajo, 4 gudoomiye degmo, dhowr iyo 10 isduwe, taliyaal ciidan, caruur, waayeel, dad wax aqoon ah, Ciroole iyo duulka weyn la yiri ayaa u markhaati furay gabarnatoorihii hore ee gobolka Hawd Axmed Cigayare, kuwaasoo aan ka labalabayn ku majeertay nin hoodo lahaa oo ayba jeclaan lahaayeen inuu la sii joogo. waxay sheegeen in hadal iyo hilbaba ay kala qalan yihiin, sidoo kalena aanay habboonayn in hadalka la isag taago lagana meeraysto oo ay uga fadhiyaan madaxweyne Biixi inuu meel ka roon Beligubadle kula itaalo gudoomiyaha uu ka durkiyey. mayseereen dadka Beligubadle iyo gobolka Hawd waxay dhayda ka cadeeyeen reer Caynaba iyo reer Beligubadle isku bil yihiin, iyadoo ay tibaaxeen in 2 mas'uul oo salaad laga keenay gobolkana yimi ay kaga tageen waxaan la arag oo la maqal.
docda kale iyaguna dhalinyarada Balligubadle ayaa afka gacanta iska geliyay waxayna madaxweyne Biixi ka duraanteen inuu dib ugu soo celiyo Axmed Cige Yare waa sida ay hadalka u dhigeen. madaxweyne waxaan ku leenahay waxaan ka codsanay inaan noo soo celiso barasaabkayga rasaas fulaan maxamed madaxweyne waxaan ka codsanay inaan noo soo celiso barasaabkayga madaxweyne waxaan ka codsanay barasaabkayga waxaan qabadeen sidoo kale ciyaartooyada marka ciyaarayaan la soo ciyaartay si marka waxaan ka codsanay inaan barasaabkayga noo soo celiso madaxweyne waxaan ka codsanay inaan noo soo celiso barasaabkayga. waxaa lagu maamusay gudoomiyahan 35 shahaado sharaf oo ay sheegeen inuu ku mutay shaqo baaxad leh oo uu deegaanka ka qabtay kana yagleelay taasoo aanay ilaawi doonin. waxay intaa ku dareen reer Balligubadle inay lababa isa saareen balse aanay weligood laba tagogo isa saarin sidoo kalena aanay burkaba bahal ka filan. xukuumadda madaxweyne Biixina aanay uga fadhiyin isku shaandhayn iyaga dhirigooda gelisa saabka. markii munaasabadu idlaatay waxaa la isu dhigay meel lagu sii diyaarshay harimo iyo sooryo gobeed oo lagu yaqaano Soomaalida gaar ahaan dadka deegaanka Balligubadle oo marti loo ahaa xilligaasi iyadoo meesha laga urquuntay sabar buuxis iyo curaagasho mugeeda leh oo laga haagay dan looga soo go'ay. in la wadi jiray reer Balligubadle waxay u qireen in magaalada Caynaba looga keenay laba gudoomiye oo halka ka soo jeeda iyagoo wanaag ku majeertay waxayna intaa ku dareen inaan iyaga la isaga soo dhigin xilka qaadista Axmed Cige Yare. isaguna gudoomiyaha cusub oo halka ka dibinjaaqay ayaa sheegay in Saylac iyo Balligubadle ay wada lahaayeen ururkii Xaqsoor oo aanay iminka isugu horeynin. dhinaca kale iyadana waxaa la soo saaray liis ay ku qoran yihiin 11 murashax oo aqalka sare ee Soomaaliya uga tartamaya gobolada waqooyi kuwaasoo sheegtay inay halka ku metelaan Somaliland. murashaxiinta waxaa ugu horeeya Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo iminka ah gudoomiyaha aqalka sare kaasoo kursigiisa ka idleeyay xansaska iyo weliba xaabada kadib markuu saaray xaraar dheer oo loogu kari waayay maadaama aanay cidina ku qordinayn inay kula tartanto 10 musharax oo kale ayaa la arkayay iyada oo la haysto kalarka shaarka sidoo kalena lagaga taagan yahay kabta faygeeda. liiska murashaxiinta xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi loona yaqaano Somaliland oo maanta la shaaciyay ayaa waxaa kursiga koowaad loo xidhay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi. 10 ka mid ah kuraasta ayaa waxaa ku tartami doona 2 ilaa 3 murashax halka kursiga koowaad uu murashax u yahay kaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi. midaasi oo hadalhayn weyn dhalisay. wasiirkii hore ugu magacawnaa warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee u dhow Cabdi Xaashi ayaa sheegay in duqa looga hadhay oo lagu maamusay kursigaas maadaama uu yahay lafaha gudahooda isla jeerkaasna aanu ka soo kabanayn gucule orod iyo weliba gaaba gurdeen lala galo. docda kale Mahdi Guuleed Maareeye iyo Cismaan Abakar Dube ayaa la daba ambuulan yahay kuwaasoo lala tartamayo xilli tirada qolyaha meesha isbaacsanaya dhan yihiin 24 qof oo madax madow oo dhammaantood ka soo hangagaaray Somaliland. wararka candhawa ah ee ka soo deexanaya magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa iyaguna sheegaya inay hiirtii waaberi ka bilaabantay isku hidiidka hubka culus iyo kan degta la saaraba. dad goobjoog ahaa oo ka warbixiyay waxa meesha ka dhacay ayaa sheegay in dadka reer Khartoum ay sameeyeen timadhis iyo weliba bibas markii ay kararah iyo weliba anfariir ka qaadeen waxa ka hogmaya daafaha magaalada. waxay sheegayaan in rasaastu socotay ilaa maalintii gadiidkeedii iyo weliba harka yoomihiisa. waxay sheegeen inuu u baxayay qiiq olol iyo hugun iyagoo arkayay guryo dumay iyo gariirka madfaca iyo duryanka rasaasta. waxay sheegeen inay arkeen dad dhintay iyo qaar dhaawacmayba. waxay sheegeen inay maqlayeen waranka baftiisa gaashaanka qacdiisa iyo dhiigga basharaqdiisa. intaa kumay dayna waxay ku dareen oo sheegeen inay arkayeen kuwo leeryanayo iyo qaar daba jabacsanaya. waxay sheegeen inay arkayeen duul nafta ku tabcaya iyo dar naftaba nacsan. arday iyaguna wax ka barata Suudaan oo la xidhiidhay TAR TV waxay u tibaaxeen inay gaboodsanayaan hoyga jaamacadda iyo gidaarada dhaadheer iyagoo intaa ku daray inuu meesha ka dhacay wax u eg afgembi. waxay sheegeen in la gooyey codfogeeyaha telefoonka dhalooyinka warka duubay idaacadaha la dhegaystaba. ugu dambeyntii daawade Mareykanka ayaa laga soo sheegay inuu baritaarayo siyaasi reer Somaliland si uu uga hortago isbalaarinta Shiinaha ee qaaradda Afrika. warar si dalagan ku soo galay kalsita warqabadka ee TAR TV ayaa bitiyay in gudoomiyaha shirkadaha Faako uu hadda u kabayladay sidii uu dhaqaajin lahaa hay'an siyaasadeed oo dhanka talada dalka isagoo wax iskaga dayaya inuu iska duldhookeeyo mid ka mid ah xisbiyada Somaliland. Farxaan Xaaji Cali ayaa la sheegayaa inuu wada hadal kula jiro qaar ka mid ah xisbiyada qaranka Somaliland.
dhinaca kale xukuumadda Joe Biden oo baryahanba u soo dhuuhaynaysay docda Somaliland ayaa la sheegayaa inay wax iskaga dayeyso sidii mas'uulkani ugu tartami lahaa doorashooyinka fooda inagu soo haya ee dalka ka dhici doona. Maraykanka ayaa doonaya inay galaangal siyaasadeed ku yeeshaan Somaliland si ay fakaansi uga hesho danaheeda ka yaala Bogcadan iyo berrinada loo tartamayo sidii loo kala qaydan lahaa ee badda cas iyo badweynta Hindiya. dhowaan ayay ahayd markii duulka Maraykan loo gacan haadiyey loona soo jeediyey inuu wax iskaga dayo sidii uu Somaliland uga faa'iideysan lahaa maadaama ay iska hudisay oo diiday Shiinaha oo gashi inuu siiyo ka weecaansanayay. waxay sheegeen Maraykanku in siyaasi iyaga matala uu ka hortagi karo isbalaadhinta Shiinaha ee Geeska Afrika haddii uu qabto wambarka ugu sareeya Somaliland. xog kale oo si maanaqata ku soo gashay Taar TV ayaa iyaduna bitisay in mas'uulkani oo haysta dhalashada Maraykanka ay iminka hortiisa timi muddo dahabi ah oo kalkeedii soo gashay taasoo uu iskaga dayayo wax inuu uga faa'iideeyo dhalinyarada dalka iyo qorweynta siyaasadda Somaliland oo in muddo ahba islaa. dadka siyaasadda qoolaaliya ama hunaafara ayaa si ku sifeeyey qorshaha ganacsada Farxaan Xaaji Cali mid lala soo daahay sidoo kalena ah dhidar socoy. si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa la sheegayaa inay la qaateen inuu iska sharaxo waxaana war wixii ka soo kordha aan idinkula wadaagi doonaa wararkeena dambe. intaa waranay waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulan. dabiibka Allah hayee daawadan qofkii rabow degalkaagay maanta timi duniduna way daawatee adoon dacalada ka dhaafin dalaq soo dhafoontayn. inkastoo lagu sheego daawooyin kala noocnooca iyo kiniino tabaashiir ah oo aan naftaada u wanaagsanayn misana maanta waxaan ku wadaa dhir dabiici ah oo laga sameeyey daawo u roon maqaarka lana dhaho Fountain of Life. waxaa laga sameeyey geed ku yaala dalka Norway iyadoo ay isugu tageen culimada islaamka iyo dhaqaatiirta ugu caansan carreeda. waxay kaga duwan yihiin waxa waaye dawadeena dabiiciga ah waxaa ku qoran number la dhaho natural product numberkaas waxaa bixiya kaliya wasaaradda caafimaadka Canada. taas waxay ku cadeynaysaa maadaama wasaaradda caafimaadka Canada soo xaqiijisay inay tahay safe oo qof kasta isticmaali karo. marka taas waay waxa oo aad ugu hubsaday inay tahay. adigoo daawo kale oo kiimika ah ku socoto ayaad isticmaali kartaa iyadoo aanay waxba yeelayn naf ahaan iyo jidh ahaanba. 10 dhibcood ayaad ka qasan doontaa goojada ay ku jirto iyadoo geedkan asalka ahi kaa dabiibi doono sonkorta ama macaanka, kixda, wadna xanuunka, babaasiirta, gaastariga, infekshanka iyo weliba xanuunka maqaarka ama dubka jidhka haleela sida lafaha iyo roomadiisanka. maaha iidheh, maaha xayeysiis, maaha iska qaado ee waa mid la tijaabiyey waayadeed dawada Ilaahay baa haya. Fountain of Life-na way dadaalaysaa. si fiican yes waxaan iibina waxa waa mid dabiiciga ku sheegay iyo midka wajiga la marsado. tan wajiga la marsado darteed tan dabiiciga loo sameeyay sababtoo ay markii tan wajiga la marsaday company wuxuu sameeyay competition tartan qof walba waxa ay 30 maalmood isticmaal waxa iska qaadaa before iyo after sawir ah. kii Africa joogay, kii China joogay, kii UK Canada joogay haduu yahay nin gabar wiil yar iyo weyn qofka soo isbedelay. geedkani wuxuu carre adag soo gaaray Google 2008 balse waa mid ku cusub geeyiga Soomaalida ee fadlan la soo eegado kala xiriiriya telefoonada kala ah 4-3-1-6-3-4-9 iyo 4-7-3-6-3-6 dawada dabiiciga ah iyo dhirta daawada Fountain of Life. Fountain of Life.